ramadaantan waxaad ku arki doontaa goobtan ilmo in aan soo dejinayno tusaale ah 30 mawduuc oo gaar u ah anshaxa guryaheena oo aan ugu talagalnay maalin kasta inta aynu ku jirno bisha Ramadaan. Mawduucyadan ayaa ah kuwa ku saabsan anshaxa akhlaaqda ama qiyamka aynu leenahay. Waxaana ugu talagalnay in ay caruurta yaryar ka qayb qaataan soo gudbintiisa iyo soo jeedintiisaba. Anshaxa 27aad waa runtaan sheegnaa khaladkana waan qiranaa. Bar ilmahaaga siyaabaha loogu dhiirigeliyo inay runta sheegaan. Yaraan ugu bilow inaad ka hadasho daacadnimada iyo faa'iidadeeda. Tusaale ahaan, waxaad bari kartaa ilmahaaga rusheegiddu inay tahay qiimaha ugu muhiimsan gurigaaga. Ku dhiirigeli ilmahaaga oo ku abaalmari in uu khaladkiisa qirto, uu runta sheego, isagoon been sheegin. Ka wada hadla halgankiina rusheegidda iyo khalad qirashada. Ogow waxaad tahay macalinka koowaad ee ilmahaagu leeyahay. Runta ayaan sheegnaa, khaladkana waan qiranaa. Runta ayaan sheegnaa, khaladkana waan qiranaa. Iftiimi mustaqbalka ilmahaaga. Waxaad ku iftiimisaa baridda anshaxa wanaagsan ee diinteena iyo dhaqankeenaba. Si aad uga dhisto caqliga oo aad u koriso dadnimadiisa iyo damiirkiisaba.